qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Berbera ayaa maanta waxay sida fiinta uga qayliyeen biyo la'aan ka jirta xaafadahaasi waxaana wasiirka biyaha Soomaaliland ugu baaqeen inuu biyo la'aanta ka jirta magaalada Berbera uu si degdeg ah wax uga qabto waa kuwa shacabka ku dhaqan xaafadahaasi oo arintaasi ka hadlaya Bismillahir Rahmaanir Rahiim annagu waxaan nahay xaafad halkan degan oo ka mid ah xaafadaha Berbera waxaan ugu daran oo ka cabanayna horta haraad wixii kale baa joogaan waad aragtaa oo dadka halkan tuban waxay ka cabayaan biyahan ay booyad ka shubteen oo ay jalqinayaan dhurayaan Berbera ay aad qura ahayd nabiyadu waxay markii hore haandow haddii ay sagaal ceel yihiin waxa shirkaanka biyaha nagu maraya ku shilin foostada biyaha iyadoo 6 kun ahayd ayaa oo ceel qura ahayd nabiyadu waa laga haqblaa marka maamulkii kasta ee meesha qabsadaba isagu biyaha annagu kama haqabliin ee wahraad baa nagu haya maamulkii kasta ee yimaadana inta la kaxeeyay loo duwa hudheel oo la yiraahdaa wadan inta laamiyada la Berbera uma dhama ee gaarada maraan marka waxaan leenahay maamul ama wasiir ama de maamulkii gobolka haysto sidoo cadaalad ma ahe xasinaado dadku hudheel la yaabo ugu horeen maamulka yimaado ama wasiiri horta dadkaaga iyo dalkaaga iyo inaad ku gasho goobaha eegto ayaan jecelahay oo loo timaado horta kulliba Abdullah Stadium agihiisa Soomaaliya waa aragtay waa magaalada balaaran ilaa xaafadan ku dhaqana waxaan haysta biyo la'aan waxaan dhahay biyo lidin keenay abana lagu yiri waa nala ballan qaaday ka xumo hayno maxaan dhahay qolo way noo timid bangiga adduunka maal gelinayo biyo lidin keenayna alanka wax naloo keenay ma jiraan habeen walba haraad baan ku seexanaa imkana shirkaamadan maxaan dhahay wanaga halka la tuban haraad halka wanaga la suugan habeen walba haraad baan ku seexaa biyo la'aan baan ka cabanayna wasiir yaa lagu geyn Mansoor iyo maxaan dhahay lagu la gelina hal lagu tuso dayarta iyo dhulka haraadka loogu baqtiyay Berbera 9 ceel leeyr ceel kaliya lahayd 500 bay biyo lagu mareeyeen markaa waan helayni hadda iyadoo la 9 ceel bay leedahay ma hayno biyihii kundu lagu maraya shirkaanku ay dad yar degan oo aan iibsan ba karayn ku kala helayn shilin ba shirkaanku nagu maraya ma haddaan heli lahayna cilmaana qabnay mar aan booyad helo oo booyadii hadda doontaan shilinkii aad siisan lahayd aan ugu bahay aniga magacaygu yahay Anab Cabdi waxaan ka cabanaynaa biyo la'aan haddaan nahay xaafadda garoonka hoostiisa aad iyo aad baan biyo ugu dhibanahay maxay haytay foostada markaan soo shubto booyadu ma tagaan meesha wax ma keenaan dhulka Ilaahay bay ku kala qaybsamaan marka waxaan ku shubanaa foostada 15 kun mid kale ma bayaala helayno biyana meel laba noo soo joogan Jaamalaya iyo bay noo soo joogan dhulka reerka u xidhan yihiin waa ka haraadan yahay way ka go'an yihiin dib waxaan nahayaa waa biyo la'aan iyo haraad waxaan la yiraahdaa xaafadayada waraabowtaaga garoon Cabdalla agtiisa weeye biyaba male waxa looga baqtay waa biyo la'aan habeen walba labadaha loo soo xidhay biyo la iibiyaba ma keenaan reerkii loo soo xidhay baaba ku biyo la mid kalena daaba oo biyo ka hela marka biyo la'aan baanu taaganahay waxaan leenahay wadanayaasha oo aan ugu baaqaynaa wasiirka biyo inuu si deg waxaan ka qadiyaan billahi ka taaganahay biyaha in lagu wariyaba lagu kiciyo annagoo dayara oo 500 heli haynin in waagi bariya gobolka dhaca lagu kiciyo haddii kale leeyahay waxaan leenahay dawladda sharafta leh inay caynka naga dayso oo hoos noo eegto biyo nagu filan oo biyo waa nagu qaali dad yar lacagna ma haysano meesha camal ma hayno waxaan laga 1500 shirkaanka dadku maanteen ma bacba shirkaanka dhowrto barba iyo bashubta si ay maantii caawa ugu gaaraan shirkaanka ilaa lacag ma haystaan marka waxaan doonaynaa dadka anagu reer miyaano ma kala naqaane dadka waxaan ugu wada in laga bedelayaan u baahno jecel waxaan u baahanahay in biyo naloo keeno waxaan u baahanahay inuu cabasidka yaga iyo maxay hadii la hirgeliyo wixii aan u baahanahay shirkaankii biyaha 1500 buu nagu taagan yahay sida ugu dhaqsaha badan waxaan u jecelnahay oo codsanaynaa in biyo noo keentaan oo noo timaadaan oo maamulka iyo magaalada iyo madaxda iyo wasiirada intuba ay noo yimaadaan oo ay maxay hadii xaafadayada hoos eegaan waxaan leeyahay xaafadda ugu shaysa ee ugu xigta dhakhtarka xooga xagga ugu magaalada laga soo galo waxaan u baahanahay biyo aan u jilcisanahay dad dan yar baan nahay dadaan maxay hadii aan iska bixin karin baan nahay biyaha tii ay noo soo xidheen maxay hadii ay dadka shicibka ay ku soo shubeen maxay hadii ay dadaaleen waxba naga tari weyday shirkaankii
markii la iibiyo biyihii wakaaladu lacagtoodii qaadatay 1500 buu noqday. dhanka kale mar aanu isku daynay inaanu dhaliilahani loo soo jeedinayo wakaalada biyaha ee magaalada Berbera aanu wax ka weydiino maareeyaha wakaalada biyaha ee Berbera ayuu ahaa xafiiskaasi gebi ahaanba mid ay albaabadu u laaban yihiin oo aanay wax shaqo ka soconin. maalintii shalay ayay markii wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland uu sheegay inay magaalada Berbera ka sameynayaan mashaariic horumarineed taasoo wax laga qabanayo biyo la'aanta ka jirta magaalada Berbera. maanta garan karaynaa haddii ilaahay ina ku siiyo inay berberbiyo ku filan helayso oo la taabato. laba ceel bay ku tiirsanayd maalmihii hawshani inoo wada bilaabatay. labada ceel oo aad u awood ah oo min 60 qodan ayay ahayd. maanta waxaynu haysanaa capacity aad u badan. 9 ceel ayaa ku soo xidhnaya oo 2 gurub ku kala muddooyinkii u dambeeyay waxaa jira dhaliilo dul hogganaya wakaalada biyaha ee magaalada Berbera taasoo ku saabsan biyo la'aanta ka jirta magaalada Berbera. waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, telefishinka Somali News, magaalada Berbera.